waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay hoolka shirarka ee Hotel Nomad tababar 2 maalin uga soconayay shaqaalaha wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ismaamulka Garissa kaasoo kor lagu qaadayay garaadka iyo xirfadda aqooneed ee shaqaalaha ka howlgala wasaaradda dardargelinta howlaha wasaaradda iyo adeeggaarsiinta bulshada ayaa halku dhagay ka duuleyso dowladda cusub ee u garqaadaya mudane Cali Bunow Qorane taasina waxay ku hirgeli kartaa in layli wacan la siiyo shaqaalaha ka howlgala wasaaradaha kala duwan ee ismaamulka Garissa wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska ismaamulka Garissa mudane Cadow Jubad oo soo xidhay tababarkan ayaa si qoto dheer uga hadlay hiigsiga ajandayaasha wasaaradda iyo guud ahaan dowladda uu hogaaminayo Cali Bunow Qorane soo sheegay PS-ka waxa way maanta waxaan soo gabaynaynaa ama aan soo afmeeraynaa shir seminar meesha nooga socday aan ku maarata tabarayne shaqaalaha wasaaradda dalxiiska ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga oo la jeedada ama muhiimadda looga baahnay maarata training wuxuu ahay shaqaalaha countiga sida uu tii 5 sano hore maadaama ahayd waqti wax barasho lagu jiray may u helin fursad oo la baro maarata shaqaalaha dadka waa dii la magacaabe fursad ma helin induction ka lagu sameeyo induction ka waxa loo carbinay shaqaalaha waxa looga baahan inay qabtaan waxyaalaha aan ka filayno in qabsi ay bulshada ugu shaqeeyaan sida la doonayo haddaad fiiriso bulshada aad bay u niyadjabsan tahay waxay ka niyadjabsaneed waxa way shaqaalaha oo shaqada ka soo bixinin ceebtana ma ku laha shaqaalaha waxa si la shaqaalaha si loo magacaabe badooda fursad ma la siinin oo shaqo lagu siiyo wasaaraddan ahay waa markii ugu hore ay countiga Garissa ama county kamida countiyaha kale ay u bixiyaan training shaqaalahooda kan man ahaan doonto kii u koowaad way man ahaan doonto kii u dambe waxaan filaynaa inaan training badan aan sameeyno si ay u carbismaan shaqaalahayna ay noqdaan kuwa howlahooda si fiican u gutaan haddii mar shaqaalaha la tabaro muhiimadeeda waxay ka soo cadaanaysaa tolka loo shaqeynayo muhiimadda ugu weyn waxa way in mishaar la qaato maaha dadka inay shaqo qaataan maaha muhiimadda ugu weyn waxa way bulshada u shaqeynayno inaan si daacad ugu shaqeyno rajada qabaan inaan sameeyno midda kale waxaan ka tashanaynay ganacsiga waa laf dhabarka bulshadeena Soomaaliyeed maadaama ay tahay laf dhabarka waxaan meesha isku weedaarsanayna maxaan ka qaban karnaa maxaan ka bedeli karnaa waxaan isla afgaranay shaqaalaha inay sida ugu daacad fiican u shaqeyn doonaan hamigana ku soconana waxa way waa hami ka turjumay rabitaanka maamulaha gafanahayna waxaan ka hadlayno ama aan sameeyno kudi waa tilaabooyin xusaayin ballanqaadkii oo u galnay bulshada markaan ku jirnay ololaha siyaasadda gafanaha qeyralaha siiyo his excellency Ambassador Cali Bunow Qorane wuxuu nasiiyay madax bannaan oo nin kasta shaqadiisa ku guto si aan ummadda u qabanno shaqaalaha ka faa'iiday tababarkan ayaa dhankooda ka mahad celiyay aqoon kororsiga ay wasaaraddu u sameysay iyagoo badankoodu sheegay inaysan aragti dheer ka haysanin howlaha culus ee hor yaalla assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim horta ilaahay ayaa mahad iskale meeshan aan maanta iskugu imaanay aniga waxaa la yidhahaa Xarima Cabdi Guure oo ka tirsan wasaaradda trade tourism and development qaas ahaan laakiin tourism ayaanu ahay maxaa la dhihi jiray director meeshan waxaan iskugu imaanay kulan wanaagsan ayaa ka jiray meeshan ayto waxaa jirtay induction course wax la dhaho macnaha waxaa loo faahfaahinayay shaqaalaha jooga departmentka sidii shaqada loo qabani lahaa sidii ay ku walbaba shaqadii loo dhibay sidoo ku gudani lahaa ayaa loo sheegay 5 sano hore oo la soo dhaafay shaqaalaha ruux walba shaqo ayuu haystay laakiin job description wax la dhaho muusan aqoonin wixii uu qofka ka shaqeynayo waraaq uu haysto appointment letter la dhaho laakiin qofka wuxuu ka shaqeynayo muuna aqoonin uu iska imaanay xafiiska uu iska joogay he was just sitting there doing nothing markan hadda alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan noo imaaday wasiir iyo PS ilaahay baa mahad iskale oo wanaagsan oo annaka dhanna diiwaan galiyeen oo maxaa la dhihi jiray sidii aan u shaqeyn lahayn iyo maxtaragii aan mari lahayn iyo wixii aan sameyn lahayn ba maanta naga jaahil bixiyeen
maadaama wasaaradaha kale dhan ay waxaan camal ay sameeyeen annaka alxamdulillahi rabbil caalamiin kulay dad fiican ayaa nagu soo hagaagay people who are very competent hardworking we have got CEC who is very hardworking likewise competent CEO ayaa nagu soo hagaagay haddii dad ayaga naftooda dad aan waxba aqoonin ay ahaan ama dad oo sakaraade sidii unbuu ahaani lahaa xafiiska oo mugdigii lagu jiray waxaa la dhahay mugdi ayaa lagu jiray safartii hore waxaa ka jirta mugdi hataa toosh ayaa lagu iftiinsanaya meesha maanta waxay noqotay qof walba xafiiskiisa oo vanished inuu ku jiro soo wasaaradda waxay noqotay mid qiimo leh haddana waxay noqoni doontaa midda ugu qiimo badan wasaaradaha aniga ahaan ani ahaanta markaan meeshan imaanayay waa as a director ayaan u joogay laakiin hataa job description kayga saas ma u sii aqoonin wixii aan qaban lahaa ama meeshii aan wax ka qaban lahaa waxaan sameyn lahaa waxba kama aqoonin hadda maadaama course-kan aan sameeyay hadda wixii oo igu macnaha jukumuga isaaran waan garani karaa wixii aan ka shaqeyn lahaa waan garani karaa scheme of work kayga hataa scheme of work ma garanaynin hadda ayaan noola sheegay waxyaalo fara badan hataa there sometimes oo la isticmaalaye oo aan aqoonin macnihiisa hadda maadaama aan inta aan joognay aan helnay muxuu ahaa waxbarashadan meeshan markaan ka laawdo waxaan rajaynayaa inaan wasaaradda aan joogo aan wax aan ka qabto departmentka aan joogo inaan horumar aan gaarsiiyo insha Allah ta'ala waxaan rabaa a change inuu dhacay departmentkeena ku ugu sareeyo inuu noqdo insha Allah ta'ala magacaygu waxaa la dhahaa Cusmaan Roble Cabdi I'm the administrative officer Ministry of Trade Enterprise and Tourism maanta kolka hore waxaa mahad iskale ilaahi mahaddaas oo ini oo training ama induction course whatever we call it madaxda horena soo martay 5 sano xafiiska aan ku jirnay inay madaxdii xafiiska maamuleysay ee fursad u helin ayaan dhihi karaa inay shaqaalaha Ministry of Trade aan loo sameeynin induction-kan oo xafiiska run ahaantii aan dhihi karo 5 sano aniga hadda waxaan kamid ahay shaqaalaha wasaaradda lagu bilaabo ama county government dadka bilaabo ayaan kamid ahaa 2013 balse waxaa nasiib darri ah 5 sano ayaan xafiis joognay oona dhacday in hataa hal mar ma artay hanaanka dawladda ma artay ama shaqada ay u qaban lahayd ama ninka ma artay dawladda ma artay matalaya ama xafiis ku fadhiyo in hataa ma artay uu aqooni waayo shaqadu markaa u fadhiyo meesha training horta maanta waxaan ka faa'iidnay hanaan waxbarasho ama hanaan training oo aan ku caawin karno ama khibrad maan haysanin dad waxaan ahaynun waxaan dhihi karaa just a place holder ma dhihi karaa ma artay oo xafiis ka dhex fadhiyo oo ama cunug markaa uu dhashoon ma artay cunuga markaa u dhashay isla markii hore kama ordi karo wuxuu soo maray process fara badan soo wixii process waxaan soo marin dad waxaan ma artay xafiis iska dhex fadhiyo balse hadda waxaan dhihi karaa dadka ganacsiyooyinka haday noo imaadaan waxyaalaha noo baahdaan ama waxyaalaha u baahan yihiin ganacsiga ku saabsan 99% ama 100% siday u baahan yihiin ayaan u caawin karnaa ayaan mar walbana ma artay u garab istaagi karnaa si kastaba ahaatee dowladdu uu hogaamiye Cali Bunow Qorane ayaa noqonaysa mid buuxisa dhammaan baahiyaha shacabka iyo shaqaalaha gobolka Gaarisa.